aaway bulaacadihi magaalada muqdisho dawladda turkiga wadooyinka dhismaheeda ayada qaabilsanay injineero oo koronto camal ma wadooyinka dhisay muxuu ay sheeg xisaabtankii aaway isla xisaabtankii noocaasa iyo b mootooyinkii waa la xisaabtamoona masaakiintii mootooyinkii qutul daruuriga raadsanaysa waa la xisaabtameynay waay dadkii wadooyinka noocaana noo dhisay waay loo la xisaabtami laaya malahan bulaacada biyo ay maraan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داوديال ميل والبا joogtaan kuna soo dhawaada channelkan Koronto Studio barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay roobab ay dad iyo duunyaba ku diirsadeen oo ka da'ay deegaano fara badan oo ay ku dhaqan yihiin ummadda Soomaaliyeed haba ugu badnaadeen gudaha dalka Soomaaliya roobabku waxay ka mid yihiin nimcooyinka Rabbi aan la dhibsanin runtii u baahan in lagu doogsado waa raxmadda Alle ay ka mid yihiin roobka sidaas oo ay tahay waxay wataan saameyn waxa jiray 24kii la soo dhaafay in magaalada Muqdisho ay ka imaanayeen warbixino kala duwan oo runtii muujinayay saameyntii ay ku reebeen roobabka arrimaha qaarkood runtii aad baa looga qurux badnaa in la soo baahiyo garoonka aadan cabdulle cusmaan oo ah garoon ka dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa garoonka kaliya ee ku yaala caasimadda dalka in biyo isagoo ay dhex ceegaagaan muuqaal laga duubo oo la baahiyo runtii qof walba wadani ah ma qurux badna adinku waxay idinka tahay qolo ku xumeeya laakiin garoonkaagii oo biyo ay fadhiyaan inaad baahisid aniga ma raba inaan muuqaalka soo qaato laakiin runtii way damqaysaa dadka baahinayo muuqaalka garoonka runtii aad looga qurux badan yahay walaalayaal wadaniyadii xagee ka baxday aawad ma aha muuqaalada la isticmaalo muuqaalkaas oo kale aad ba horta runtii ugu xumahay in muuqaalo noocaas oo kale la soo baahiyo waliba garoonka darbigiisii oo muxuu ahaa sheeg say wuxuu jiraan walaalayaal oo yaakhi recording kan iyo wax duubisti khalada u fahanteen walaalayaal waxay ahayd adinkan duubaayo isxilqaan ina sameysaan ina biyaha meesha ka saartaan inkastoo garoonka ay gacanta ku hayaan qolooyinkan dawladda walaalaheena ee Turkiga waa soo laaban doona caawa waligay Turki dhaliil uma jeedinin laakiin caawa dawladda Turkiga waxaan rabaa inaan dhaliilahooda aan muxuu ahaa gacanta u gelin hadii Allah uu dalay u qadaro waxa jiro runtii wadooyin fara badan oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka dadweynaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka degmooyin dhowr ah runtii waxa go'ay isu socodkii runtii wadooyinka qaarkood rajo lagama qabo inay furmaan ayaa lagu leeyahay maalmaha soo socda biyaha fadhiya awgood tusaale wadankan Kenya aan joogno magaalada Nairobi waxa jiro wadada meelo loogu talagalay inay biyaha ka baxaan dhismooyinka laamiga intaan la dhisin ugu horeyn waxa laga fakaraa biyahan horta roob hadoo imaado wax kasta dhici kare biyahan xagee marayaan aaway bulaacadihi magaalada Muqdisho dawladda Turkiga wadooyinka dhismaheeda ayada qaabilsanay injineero oo koronto camal ma wadooyinka dhisay muxuu ay sheeg xisaabtankii aaway isla xisaabtankii noocaasa iyo b mootooyinkii waa la xisaabtamoona masaakiintii mootooyinkii qutul daruuriga raadsanaysa waa la xisaabtameynay waay dadkii wadooyinka noocaana noo dhisay waay loo la xisaabtami laaya malahan bulaacada biyo ay maraan biyihi marshibiyadii nag waay intee marayaan makasaysid wadadii cadeed isku dhigayaan baawur ma maraayo wadadii bajaaj ma maraayo misbiyi maraayo biyihi iyo dadweynihii iyo marshibiyadii wixii oo dhan
laamiya la isku soo wada dhigay haye meelaha qaarkood waa la xiray wada markii la soo xiro biyaha imaada toos ku imaaday wada kale marayaan no haye wadooyinka banaan oo biyaha u furan ma taqaaniin marka waa dadkii masaakiinta ahaa waa wadooyinka iyo goobaha ay degan yihiin dadka tabaaleysan biyihii toos wadooyinkaas ay u abaaraya imise jeer ayay dhacday in biyo wada ka soo leexday ay abaaraan dad masaakiina meelahoodii wadooyinka Siinay jidka Sodonka wadnaha dhinacaas marka aadidna ma jiraanba wax isxilqaan la yiraahdo ama wada la furaayo ama muxuu ay sheeg wadooyinka biyo saas u wada fadhiyaan aniga pointiga aan ka abaarayo roobku waa raxmad waana loo baahan yahay roobka sidaas oo ay tahay waxay ahayd in lagu xisaabtamo war biyahan xagee marayaan walba xitaa maxaa loo sameeyay waay booyada biyaha dhuuqo si emergency ah wadooyinka qaarkood ilaan isticmaalkooda aad bay muhiim u yihiin raalli ahaada wara iska galay waan dareemi karaa roobabka qaarkii inay qasaaro nafeed ay geysteen Allah u naxariisto dadkii ku geeriyooday intii muxuu ahaa qasaaro hantiyadeed ay ka soo gaartana runtii waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu fududeeyo waxaa jiro muuqaalada marka aad aragtid baraha bulshada indho xumo deegaanada qaarkood iyo goobaha qaarkood maamulka gobolka Banaadir hawl badan u taalo roobabka bilow leewaay hadda bilow yihiin haddana hadda la baraarugay maanta garoonka Muqdisho biyo fadhiyaan la soo duubay biriyaa dhiman intee sugaysiin maanta intee noo dhiman oo in ceebteena la faafiyo intee noo dhiman aan sugaynaa dawladda Turkiga oo u xil saaran dhismaha wadooyinka waaxda dhismaha wadooyinka maamulka gobolka Banaadir iyo cid walba oo qaabilsan waxaanu uga fadhinaa oo aanu ka sugaynaa inay wadooyinka bulaacada u sameeyaan biyaha iyo roobabka waa inay badda ku shubmi karaan bulaacadiya aadi karaan dadka qaar ajiro walaac bulaacadiya walaac laga muujinaya kuwii ama ay soo dhaxmaraan kuwii ama ay soo dhaxgalaan waxba walaac laga muujinaa bulaacada naftirkeeda waardiyo dhowr askari hal fadhiisino laakiin muhiim waaye in biyaha meel ay ka baxaan walaalayaal la helo aan bal yara daawano qaar kamid ah muuqaalada roobabkii ka daayay magaalada Muqdisho haye ودركيسان يا باقو دريسا halkay joogtaa horta waxaan joogaa Eelqalow masaajidka Eelqalow haye salaat alqudba ka soo baxdeen qudbadayaan ka soo baxnay culisoon waan ku tukaweyni meel aan ku tukuna ayaan wayna culisoo waa kana mid ka dheer tiin anaga xafaayaadkan ku dhex jirnaa horta arkabo culisoo waa meeshan ku dhex jirna bal eeg dhibaatada aan ku sugnahay haye dawladda waxaan u baahanahay inay wax biyahan wax ka qabato oo soo fiir kaamirada fiiri marka waxa u jeedin dhibaatada aan ku sugnahay waxay leedahay madiina hal wadadaas kaliya wadadiina saalay naqatay way istaagtay wadooyinkii dadkii meelay maraan male mooto iska badaay mootooyinka xagga ku kala goleen mid waabatana inta ku gadoontay hadda baawona mari karin mooto iska day mid halkaan ay ku dhacday mooto halkaan ay ku gadoontay si fiican uga mooto waa ku qabtay gadaashaada waa u jeedaan waa u jeedin meel la maro male hay xaaji u sheeg waxaa kaloo jiro arinta Muqdisho marka inta uga soo gudbo walaac xoogan oo laga muujinayo wabiga Shabeelle oo buuxdaafiyay qarku saaran yahay fatahaad mana jiro isxilqaan iyo muxuu ahaa ii sheeg attention ku aadan xilli walbo in muxuu ahaa waxaa jiro in la leeyahay marka cirka uu soo xirxiro oo roobka imaado in laga cabsi qabo dabeelaha haday arkaan in dadka ku teedsan Jowhar iyo Balcad iyo deegaanada ku teedsan wabiga in baqdin xoogan ay qabaan ayaa jirto ayagana waxaan leeyahay fatahaad Allah ka baajiyo
cabsi xooganna way jirtaa walaalayaal aan u gurmano dadka ay saameeyeen muxuu ahaa roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka aan u diyaar garowno walaalayaal xilli walbo inaan qof walba oo walaalo Soomaaliyeed oo dhibaataysan inaan gurmad u fidino aan ku dadaalno sidii wadooyinka xiran loo furi lahaa halka aan ku mashquulsannahay inaan micnaha mootooyinkii dhalinyaradii masaakiinta ahayd AEB inaan u qaybino mudooyinkii iyo muqdisho iyo magaaladii iyo bilicdii iyo wixii oo dhan guryihii dhismooyinkii wixii oo dhan ayaaba burbursanba aan ka wada shaqeyno maamulka gobolka Banaadir shaqo xoogana u taalo roobabkana hadday bilow yihiin roobabku muqdisho kaliya kuma koobno meelo kala duwan ayay ka da'ayaan magaalada Nairobi aan deganahay shalay iyo daraad iyo muxuu ahay sheeg maalmahan oo dhan roob aan noo da'ay haddana marka aan laamiga marno meelo yar yar biyihii fadhiyaan biyihii kale oo da'ay oo socday oo kaamirooyinka laga soo duubay aawen biyihii ja already meel ay mari lahaayeen way mareen waa la kala daneystano roobkii iyo biyihiisii meel ay marayaan way haystaan laakiin muqdisho biyihii weli meeshooday fadhiyaan meel ay u socdaan ma laha waayo bulaacada looma sameynin intaas ayaan rabay inaan ka iraahdo arrimaha roobabka magaalada muqdisho intii ku geeriyoota Allah u naxariisto intii muxuu ahay sheeg waxyeello ka soo gaartana Allah muxuu ahaa subhanahu wa ta'ala badal khayr qaba ugu badal ayaan leenahay waana dareemi karnaa qasaarahan tiyadeed inay geysteen dhacdooyinkana runtii aad bay u far badan karaan muuqaal ahaan inaad daawataan un baan ugu talagalay laakiin muuqaalkii garoonka muqdisho walaalayaal waa cambaareynaya cid soo duubtay aad baana looga qurux badnaa in muuqaalo noocaas ah ishii dalka wadaniyada aad bay muhiim u tahay meelaha muhiimka walaalayaal noo ilaaliya dhib kasta oo ka dhaco واجب كاسار دولة كلية واجب كما صارنا سيدا نبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته